maamulaha cusub ee iskuulka hoose dhexe sare ee Bakool waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Bakool, maamulka degmada Xudur, wakiilada wasaaradda waxbarashada dowladda Koonfur Galbeed, macallimiin, ardada iskuulka, waalidiin iyo marti sharaf kale. Wasaaradda waxbarashada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maamule cusub u magacowday iskuulka hoose dhexe sare ee Bakool oo in muddo maamulku milgaara gacanta ku hayay. Waana iskuulka ugu weyn dhismo ahaan, da' ahaan iyo taariikh ahaan deegaanada gobolka Bakool. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Xudur Aadan Axmed Maxamuud oo munaasabada ka hadlay ayaa ku baaqay in la shaqeeyo maamulka cusub ee dugsiga. In la shaqeeyo maamulayaalka cusub, in la shaqeeyo waalidiinta, in la shaqeeyo macallimiinta, in la shaqeeyo ardayda, in la shaqeeyo maamul gobol iyo degmo, in la shaqeeyo wasaarad ahaan diyaaran in la shaqeeyo yoona may la faray macnaha waajibaadkiisa lan egmadi iyo gudada. maamulaha cusub Axmed Sheekh Cali oo wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed uga mahadceliyay fursadda ay siisay ayaa sheegay inay soo saari doonaan arday leh aqoon iyo akhlaaq. maamulka la shaqeeyana, macallimiinta la shaqeeyana, waalidiinta la shaqeeyana, ardayda in shaqeeyana unu maanaha may falaana intu wal hasaarna arday tayo leh oo baare oo akhlaaqda islaamka ku muuqato madaja suuqnin jaranayna dhar qaldan weedana oo xishmad leh insha Allah ya hasaarna fadana. waalidiinta ardada ayaa bogaadiyay in maamulo tayo leh loo sameeyo iskuulka ardadooda ay dhigtaan lana shaqeyn doonaan. waalidiinta meelna reenin il shaqeeyaan hadii uu wakiilku ana may fadaan hadii ilaahay una la shaqeeyna maamulka la shaqeeyna macallimiinta la shaqeeyna wal walaaliniin ku baahda oo ardayda la deersiyo amba waalidiinta la deersiyo una lahayn sheego kora oo una sii gudbiyaan hadii ilaahay insha Allah dhanaga waalidiinta